السلام عليكم asxaabta ku xiran jil xirfad kusoo dhawaada muuqaal cusub kaasoo aan kaga hadli doono sida loo samaysto Pocket Option muuqaalkan oo ah muuqaal dhammaystiran haddaba haddii aad nagu cusubtahay nagu soo bir haddii aad hore noola joogtiin muuqaalka like saar si uu gaadho asxaab badan kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta shirkadda Pocket Option waxa ay si maalinlaha qaybta Gmail-ka aad ku samaysatay kuula soo wadaagtaa xog cusub badan inay jiraan website-yo scam ah oo u eg magaca website-ka Pocket Option haddaba muuqaalkan waxa aad ku baran doontaa sidee loo samaysto Ether app sidee loo samaystaa Perfect Money iyo sidee lacag loogu shubtaa Perfect Money sidee lacag loogala baxaa Perfect Money sidee lacag loogu shubtaa Pocket Option iyo sidee lacag loogala baxaa Pocket Option haddaba muuqaalkan haddii aad dhamaysato xogtaas oo dhan ayaad ka faa'iidi doontaa insha Allah haddaba marka uu qofku doonayo inuu Pocket Option lacag soo dhigto aad bay ula yaabaya qofku inuu Pocket Option lacagtiisa ugu jirta sim card-ka uu soo dhigto sim card-ku nooc doona oo ahaadee waxaa jira application kuu sahlaya in lacagta ku dhigaan sariflayaal Soomaaliya marka hadda sariflayaasha aan anigu isticmaalo waxa kamid ah Tufaax Exchange ayaa kamid ah application kaas ayaa kamid ah waxa kale oo kamid ah Ether app ayaa isaguna kamid ah ka ugu wanaagsan aan isticmaalo marka hadda anigu kan ayaan isticmaalaa waxaan leeyahay Open marka ay dhahdo san uu soo kacaya marka shaashada adigu soo dhologarayso adigoo isticmaalaya Play Store iyo Android ba labadaba aad isticmaalaysaa ama App Store ba aad isticmaalaysaa marka Soomaali hadii ku yahay Soomaali baad ka dhiganaysaa hadda English baad ka dhiganaysaa marka aad doonaysaa hadaba inaad samaysato halkan aad leedahay sign up marka halkan waxaad gelinaysaa lambarkaaga kadib markaad buuxiso verification sign ayaa lagu soo diray lambarkaaga waad gelinaysaa kadibna koodkii lagu soo diray waxa inta kadibna aad samaysanaysaa lambarkaaga ayaad ku galaysaa iyo password marka password ayaad u samaysanaysaa hadda marka imarkayga ayaan gelayaa marka phone-kan ayaa ku soo baxay phone-kan markuu ku soo baxo halkan waa home-kii oo home-kan halkan waa transaction-nada aad dhaca marka adiga wax lagaaga baahan yahay halkan add ay ku qoran tahay aad soo buuxiso marka halka kood dahabtaada ayaad gelinaysaa hadii dahab leedahay hadii kale M-Pesa aad leedahay xagan kalena waxa soo gelinaysaa Premier Wallet-kaaga lambarka ugu samaysan halkan EFC sahal sad cheap dhamaan lambaradaas ayaad gelinaysaa halkana Perfect Money-ga ayaad soo gelinaysaa aan ku sheegi doono qaabka loo sameeyo isagana iyo qaabka lambarkan looga soo qorto inta yar koodkan halkana Binance-taada linkigeeda ayaad soo gashanaysaa marka hadda aniga intaas ayaan buuxiyay marka safe ayaad leedahay marka hadaba aad doonaysaa inaad lacag dhigato Perfect Money oo Perfect Money-ga aad lacag doonaysaa inaad dhigato halkaas sare ayaad leedahay halkan hoose ayaad leedahay dahab ka dhig xagana waxaad ka dhigaysaa Telesom sad xagana waxaad ka dhigaysaa hadana Perfect Money ayaad ka dhigaysaa ama kolba wixii aad ku dhiganaysaa ayaad ka dhiganaysaa marka Premier Wallet hadii aad lacag dirayso oo kala saas ayaad leedahay sad iga soo saara kolba kii ay lacag ugu jirto lagaga soo saariyo ka lagu dhigayna xagga hoose ayaad dhigaysaa marka confirm ayaad leedahay lacagta dhigaysaa Perfect Money aad geyn kartaa waxay noqon kartaa $6 marka $6 ayaad dhiganaysaa saas ayaad ku oranaysaa kadibna marka lacagta waxay ku tagaysaa Perfect Money application-kaas intaas ayaan kaga baxaya application-ka labaad ee aad u baahan tahay waa Perfect Money waxa uu ku saalayaa inaad lacag dhigato lacagna aad kala soo baxdo Perfect Money kaaga ma baahna inaad verification ku samayso lacagtaada waxa aad gaarsiin kartaa $100 $200 laakiin ilaa $100 meelaha waxa ilaa lacag $100 gaaraysa aan baana loo ogolayn inaad dhigato laakiin lacagta wax ka yar inta waad ka saaran kartaa waana kala bixi kartaa marka application-kan open hadda waxa ku jira koodkayga hore marka adiga aad cusub tahay sign up marka tiraahdo halkan phone-kan ayaad buuxinaysaa magacaaga koowaad ayaad ku qoranaysaa halkan name baad ku qoranaysaa oo saddexan xagan city magaalada aad degan tahay address yar oo aad samaysatay marka phone-kan qaabka loo buuxinayo muuqaalkan daawo kadib saas aan ku dhaafaya aad buuxsato waxaanan aad kuugu dardaarayaa inaad samaysato Gmail aad hubto oo aad garanayso password-kiisa oo kuugu jira mobilkaaga password-kana marka aad halkan gelinayso waa inaad hubiso oo aad saxato ama meel aad ku qorato kadibna kabshaha yar lambarkan aad halkan geliso kadibna waxa lagu soo dirayaa koodkaas waa
number ID-gan halkan oo kale ayaa lagugu soo dirayaa Gmail-ka. Kaas ayaad soo qoranaysaa kadibna ka ayaad ku galaysaa. Kan waa lagu galayaa marka aad ku gasho kadib waxaad gelinaysaa kabshaan yar ayaad gelinaysaa. Imika haddii aan geliyo kadib kabshaan marka aan geliyo wuxuu gudaha ayuu ii gelin doonaa wuxuuna i tusi doonaa akoonkayga lacagta ii taala. Marka imika kan markaan galo passwordkiisina waa kan halkan uu qarsoon yahay. Marka adiga lambarkan ayaa Gmail-ka lagugu soo dirayaa. Kan waxaa ku qoran member ID ayaa la yiraahdaa. Member ID waa ka lagu galayo maaha ka lacagta lagu dirayo iyo ka lacagta meel lagaga saaranayo. Marka dadku way isku qaldaan. Marka member ID-gan waa ka lagu galayo waad ilaashanaysaa. Kana waa passwordkaaga laakiin waa inaad markasta passwordkaaga aad garanayso. member ID-ga markasta waxaad ka helaysaa isaga Gmail-ka. marka haddii aan geliyo wuxuu leeyahay markasta please your email ayaan kuugu dirnay pin code. markasta Gmail-kaaga ayaa pin code lagu diray. haddaad lacag la baxayso haddaad lacag gelinayso pin-kaaga wuu shaqaynayaa markasta. marka Gmail-kaaga waa inuu ahaado Gmail moolka kugu jira oo shaqaynaya marka aad ku samaysanayso Perfect Money-ga. marka pin-kii ayaan kasoo qortay Gmail-ka waad arkaysaan. marka confirm baan leeyahay wuxuu gudaha inoo geyn doonaa shaashadeena oo ah akoonkeena lacagta inoogu jirto. oo arkaysaan akoonkan ayaad soo qoranaysaa U3595436 kaasi ayuu waxa loo soo gaabiyey lacagtaasi waa USDT ayaa loo soo gaabiyey U-daas. marka laba akoon oo USDT saddex buuba iga noqday. marka uu ka noqon karaa laakiin mid kaliya ayaad isticmaali kartaa. marka qaar 4 bay noqon karaan laakiin adiga ka ay hadii lacag ugu jirta waxay lacagta ugu jirtay $$3.27 ayaa ugu jira. halkan wuxuu iga tusay lacagii aan kala baxay dhaqdhaqaaqyadeydii lacagii isoo galay lacagii aan la baxay minus waa waxaan la baxay $50 lacagahaas oo dhan ayaan la baxay $13 lacagahaas waa lacagii aan la baxay. haddii aan kugu celiyo lambarkan ayaad qoraysaa. marka lambarkan marka qorto waxa aad gelinaysaa ay dartaadi lambarkan aad arkayso U35 ayaad halkan soo gelinaysaa. waa kan lambarkan waa isku fiiri waa isku lambar. marka lambarkaas ayaad gelinaysaa. sidaad arkaysid labada lambar waa isku fiirin doontaa. labada lambar waa isku mid saad arkayso kii hore iyo kanba waa isku mid. markaas saas ayaad soo qoranaysaa. lambarkaas waa inuu halka kugu jira. kaasina wuxuu sheegayaa waa ka lacagta marka aad ka saaranayso kana laga saaraya weey Perfect Money-ga lacagiga soo saar hadana marka ku dhaado lambarkaas ayuu Perfect Money-ga imka lacagiga soo saarada xaga sare Perfect Money-ga geeyo lambarkan ayuu lacagta ka soo saaraya. marka lacagta igu jirtay oo ahay 330 ayaan gelinaya intaas la igu soo saaraya sidaadida isla markaaba la dhex keenay oo markan doonay lacagan kala baxo. marka haddaan sidaadida lacag igu jirtay halkan sare ayaan sidaada marinaya imkii dahab taas ay lacag igu jirtaa marka $330 wax la igu geenaya sidaadida waa la ii kala bedelaya. marka ama Premier Wallet-kayga ay la ii geenaya intaas waa kala bedel from waa laga qaadayo tuna waa la geenayo. marka intaas aad ayaad u fahantaa waa fududahay. sidee ayaan Pocket Option lacag u dhigan karnaa ama lacag u shuban karnaa inagoo isticmaalna Perfect Money. haddaba haddii aad aqoon Perfect Money sida loo sameeyo daawo muuqaalkan si aad u ogaato sida loo sameeyo. marka ugu horeyn waxaan geli doonaa Perfect Money-geena inagoo eegana lacagta inoogu jirta. hadda lacagta inoogu jirta Perfect Money waa $6 marka $5 oo kamid ah ayaanu dhigan doonaa Pocket Option-keena. application-kan Pocket Option marna waa website marna waxaad ku isticmaali kartaa isagoo application ha mobilkaaga. marka isaga ayaad ku dhufanaysaa Pocket Option-keena qaybta real-ga wax lacag inoogu jirto waa ever. marka haddaba waxaan doonaynaa inaan lacag ku soo shubano Pocket Option waa trade la trade gareynayo lacagta aad soo dhigato ayaa trade gareynaysaa mar walba inta aad dhigato adiga oo helaya inteeda marka uu suuqu jiro inaad ka faa'iideysato fursad suuqa adigoo marna u galaya asal marna buy u galaya. marka haddaba waxaynu doonaynaa inaynu lacag soo dhigano waxaynu tagnaa profile-kan. profile-ka markaan tagno waxaynu ka sii galaynaa Finance marka aynu tagno waxaynu ku dhufanaynaa deposit ayaan leenahay si aynu lacag u soo dhigano. kadib dhammaan waxay noo soo baxaya akoonadan ugu horeeya Perfect Money. haddaba inagu waxaynu dooranaa Perfect Money Trust Wallet waad ku soo dhigan kartaa Tron baad ku soo dhigan kartaa Binance waad ku dhigan kartaa watan marka Payeer waad ku dhigan kartaa dhammaan ilaa Mastercard-kaaga waad ku soo dhigan kartaa xaggan hoose ayuu ku jiraa.
master cardkaagii waa kan, master card waad kusoo dhigan kartaa, visa card waad kusoo dhigan kartaa, dhammaan xawaaladahaas oo dhan baad kusoo dhiganaysaa. Marka anagu waxaan doonaynaa iminka inay perfect money lacag kasoo dhigano, marka perfect moneyga ayaynu ku dhufanaynaa, halkan $100 ay ku qoran tahay ayaynu ka tiraynaa, kadib waxaynu ku qoraynaa $5, kadib $5 markaan ku qorno continue buy ayaanu leenahay, kadib formkan ayaa inoo soo baxaya kaasoo cadaynaya inaad perfect moneygaas lacag u dirayso, macnaha perfect moneygan ayaa lacag loo diraya, isaguna wuu kusoo dhex dhigayaa pocket optionka ayuu ku xiran yahay. Marka halkan ayaad leedahay make payment, halkan waxaad soo gelinaysaa member ID-ga aad ku gasho perfect moneyga iyo passwordkiisa iyo numberkan halkan ku qoran ayaad ku buuxbuuxinaysaa. Marka inaguna hadda waan soo buuxbuuxinaynaa, kadib markaaynu buuxbuuxino waxaaynu leenahay private payment, marka intaas waan israacinaya maadaama uu lambarku yaasir idima tusayo. kadib markaan intaa gelgelino waxaa inoo soo baxaya koodhkaasoo inalagu dirayo gmailkii aan perfect moneyga ku samaysanay. wuxuu ku leeyahay please check hubi your emailkaaga lagu diray pin code marka ay ku qoran tahay ayaad soo qoranaysaa, kadib halkan ayaad gelinaysaa. marka aynu soo qaadano waxaanu leenahay continue, kadib waxaynu sii leenahay lacagteena $5.09 ayaa laga jarayaa, kadib confirm ayaan leenahay, confirm ayaan u diraynaa. marka lacagteena inoogu jirtay waxay $6.32, confirm payment ayaan leenahay, kadib halkan waxaan sii leenahay continue, macnaha calaamadan wuxuu sheegaya in laga dirayo pocket option loo dirayo lacagtaas $5, continue ayaan sii leenahay. wakaas hadda waxaad arkaysaa $5 ayaa noogu jiraan akoonkii, saas ayaa fudud ayaad lacag usoo dhiganaysaa. hadhow markaad lacagta la baxayso wax laga rabaa inaad gaadhsiiso halkan $10. sidee ayaa lacagta loogala baxaa pocket option? marka aad doonayso haddaba inaad pocket option lacag kala baxdo, hadda waxaa igu jira $22 iyo 20 senti, $22 iyo 20 senti. marka waxaan tegayaa profilekayga markaan ku dhufto waxaan tegayaa halkan ay ku qoran tahay finance, markaan kusii dhufto waxaan tegayaa withdraw marka aan idhaahdo wuxuu leeyahay lacagta ugu yar ee lala bixi karaa waa $10. aniga marka hadda waxaa igu jira $22 iyo 20 senti, waxaan doonayaa inaan la baxo lacag 10 senti aniga kula baxayo perfect money. xaggan waxaan gelinayaa $10 ayaan doonayaa inaan la baxo, kadib waxaan sii leeyahay continue. marka halkan waxaa la gelinayaa perfect moneyga gudaha, lambarkan waa kii aan kusoo dhigtay lacagta markii aad u fiirsatay, marka markasta wuu iigu jirayaa waayo lacagta aan kusoo dhigtay awgeed ayaa loo diiwaangeliyey in hadhowna lacagta aan kula bixi karo. kolba akoonka aan kusoo dhigto lacagta haddii uu baayer yahay kaas ayaa la ii diiwaangelinayaa. marka iminka waxaan la bixi doonaa $10 anagoo sii odhanay continue. wuxuuna leeyahay lacagtaas waa lagu soo dirayaa receive fund with few business day. lacagtan waxaad ka eegan doontaa perfect moneygaaga. marka lacagta hadda way baxday, halkaa waxaa igu jiray $10, sidaa awgeed markay lacagtiina soo gaadho waxaan eegi doonaa bal perfect moneygeena inayna soo gaadhay. sida aragtaan lacagtii weli namay soo gaadhin, waxaa noogu jira $1 iyo 20 senti. waxaan eegi doonaa markayna soo gaadho. weli wuxuu leeyahay lacagtaadii waa la eegayaa inay binding ayay ku jirtaa. marka lacagtu hadda ay dhammaato bindingkaasi kadib ayaa naloo soo diraya lacagta. marka ay lacagtiina soo gaadho halka new ay ku qoran tahay complete ayay noqon doontaa, markasta lacagtaas oo kale ayay noqon doontaa. marka waan eegnaa in lacagtiina soo gaadho, weli perfect moneyga may soo gaadhin. hal saac kadib saa arkaysaan lacagtii wayna soo gaadhay $10 withdraw complete ayuu yidhi. marka waxaan hadda soo eegi doonaa perfect moneygeena inay lacagtaasi kusoo dhacday. sidooda arkaysaan waxaana soo gaadhay $10, lacagtaas $10 oo aan wax fee ama promotion aan laga goosanayn. perfect moneygeena waxaa ku jira $11. hadda waxaan doonaynaa inaan lacagtan kala sii baxno $11
perfect money-ga haddaba marka aad perfect money doonaysa lacag inaad kala baxdo hadda ani perfect money waxa igu jira $360 iyo 87 senti ayaa igu jira marka waxaan isticmaalay application-kii Edir ayaan isticmaali doonaa marka waxaan ka saari doonaa kugu tusi doonaa $10 inaan ka saarto marka $10 ayaan kugu tusi doonaa halkan waxaad leedahay perfect money ka dhig xagana waxaad ka gelinaysaa halkan waxaad gelinaysaa $10 ayaad gelinaysaa kadib $10 $11 geli 10 iyo 56 ayaan soo gaaraya marka form baa la buuxinaya formka marka aad buuxiso halkan ayaad leedahay confirm formkan ayaa ku soo baxaya formkan ayaad buuxinaysaa waxaad halkan gelinaysaa number ID-ga aad ku gasho iyo passwordka iyo numberkan yar ee xaggan ku qoran ayaad gelinaysaa lacagtaas $12 waa naloo soo dirayaa process bay ku jirtaa guntiga gabagabadii videogan wax badan ayaad ka faa'iiday haddii aad muuqaalka halkan soo gaadhay muuqaalka like star si asxaab badan gaadho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu